kulanti wacan wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal soo dhawaada halkan waa nuxurka wararka waxyaabaan ku falanqeyn doona barnaamijkan waxa kamid noqon doona musuqmaasuqkii ugu xooganaa ayaa ka jira Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa haddii la weyn raalo ka noqdo xogii ugu dambeeyay amuurahaasi ku saabsan oo aanu halkan idinku falanqeyn doono haddii la weyn raalo ka noqdo sidoo kale barnaamijka waxaan ku falanqeyn doonaa kuna faaqidi doonaa mooshinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadda xildhibaanadu ay aad ka u riixayeen dhowrkii maalmood ee aynu soo dhaafnay oo macquul ay tahay in gabi ahaantiisba la laalo waxaan idin soo gudbin doonaa xogo amuurahaasi ku saabsan cidda ka shaqeynaysa waxaan idin soo gudbin doonaa xildhibaano diidan tallaabadaasi aadan madoobe xagee ayuu jiraa halkan ayaan ku falanqeyn doonaa haddii la weyn raalo ka noqdo daawadayaal saaxiibayaal sidoo kale barnaamijkan waxyaabo aan idinku falanqeyn doono kuna faaqidi doono saaxiibada sida tooska ah inuu ugu xirano waxa ka mid noqon doona maxaa ka cusub kulamadii xubnaha mucaaridka ah ee muqdisho ku kulmi lahaa ka hor bilaabashada bisha barakeysan ee Ramadaan wararkii ugu dambeeyay amuurahaas ayaan halkan kusoo gudbin doonaa kula falanqeyn doonaa midow xoogan oo soo socda oo xubnaha mucaaridku ay sameyn doonaan iyo xubno waaweyn oo meeqaam leh mas'uuliyiin hore u soo noqday xilal sare dawladda ka soo qabtay ayaa midoobi doona barnaamijkan idin kugu soo gudbin doona xogo amuuraha ku saabsan qodobada iyo kuwa kale ee soo dhawaada la gareeyo shirgareeyo sidoo kale wadaaga saaxiibadiina daawadayaal saaxiibayaal haddii aynu ku bilowno barnaamijkan saaxiibada sida tooska nagu xirano musuqmaasuqa ayaa waxa uu markaasi yahay mid iminka si weyn looga dareemayo guud ahaan Soomaaliya ayaana waxay dunida markaasi ka hogaaminaysaa dalalka dhanka musuqmaasuqa ah taasi oo markaasi cadeen u ah inta badan waxyaabaha ay markaasi tilmaamaan dadka iyagu aad ugu fogaan arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya sida ay xoguhu aanu helno ay tibaaxayaan dhowrkii bilood ee aynu soo dhaafnay waxaa socday buuq aad u xogan oo ku saabsan arrimaha dhulalka sidoo kale waxaa jiray arrimo ku saabsan dhaqdhaqaaqyo iyo arrimo ku gadaaman in wax isdabamarin ay markaasi ka dhacayaan xafiisyo sare oo dalka ah kuwaasoo mucaaradku qaarkii ay markaasi tibaaxeen dowladda federaaliga ee Soomaaliya ayaa waxay markaasi bilowgeediiba ku soo gashay olole ah in ay la dirireyso musuqmaasuqa inta tabarteeda ah ama ay markaasi itaalkeeda u gaarsiiyo si kastaahi oo xaaladda noqoto daawadayaal saaxiibayaal tan iyo wixii ay markaasi ka dambeeyay waxa is soo tarayay dadaallo ay markaasi dawladdu ugu jirto xafiisyo dhanka musuqmaasuqa looga shakiyay oo ay dawladdu markaasi si weyn albaabada ugu laabtay ama ay ka ceerisay xubnahaasi laakiin weli Soomaaliya waxay ku jirtaa kaalinta koowaad ee dalalka hogaaminaya musuqa adduunka sida ay ka dhawaajisay hay'adda Transparency International taasoo ay markaasi dabagal ku sameeysa arrimaha musuqmaasuqa ah ee caalamiga sanadkii tagay ayaa warbixintu si markaasi gooni ah diiradda ugu saartay in Soomaaliya uu markaasi hogaaminayo dalalkaasi iyadoo xilligaasi Soomaaliya ka jireen arrimo ku saabsan in la beegsaday mas'uuliyiin sare sida socdaalka iyo sidoo kale xafiisyo kale oo waaweyn oo dawladda ah si kasta oo xaaladda noqotay 280 dal ayay markaasi ahayd mid iyadoo warbixintan lagu falanqeeyay iyadoo la adeegsanayo cabir caalami ah oo lagu qiimeeyo heerka musuqa dalalka ugu hooseeya liiskan waxaa lagu tilmaamay kuwa ugu musuqa daran ee sameeyay taasoo caqabad weyn ku ah kobaca dhaqaalaha maamul wanaagga iyo horumarka bulshada si kasta oo xaaladda noqoto Soomaaliya oo sanadii ugu dambeeyay safka hore kaga jirtay dalalka ugu musuqa badan dunidan aynu ku noolnahay ayaa mar kale la xaqiijiyay in musuqmaasuqu uu yahay caqabad weyn oo dib u dhigtay horumarka dalka waxaana ay gashay Soomaaliya kaalinta 179 waxaana kaliya ka hooseeya dalkaasi South Sudan oo gashay kaalinta 180 si kasta oo xaaladda noqoto arrintan ay markaasi shaaca u soo dhigaysaa heerka Soomaaliya ay markaasi wax isdabamarintu iyo musuqmaasuqu uu markaasi ka jiro mucaaridka Soomaaliya ayaa si weyn ugu dhaliilaya dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyadoo shaacinta hay'adda International Transparency shaacinteeda imaanayso iyadoo doodahaasi ay mucaaradku ay qabeen oo ay si weyn ugu dhaliilayeen dawladdu arrimaha la xiriira dhulalka iyo wax isdabamarin kale oo ay mucaaradku tilmaamayeen haddaba
inta ay kaga gudbaynaa arrimahaasi iyo shaacinta hay-addaasi ay shaacisay in Soomaaliya ay liiskaasi meelaha ugu hooseeya kaga jirto oo ay hogaaminayso musuqmaasuqa dunida iyadoo si weyn loogu waday in mooshin ka dhana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la keeno xarunta golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya kadib fasaxiisii 2 bilood ahaa ayaa waxa arrimahaasi ay ahaayeen kuwa si weyn ugu soo shaabaxay dalkaasi Kenya gaar ahaan Nairobi ilaa 100 xildhibaan in lagu diyaariyay ay ku diyaar yihiin oo ay ku balameen in mooshinkaasi la horgeeyo golaha kadib arrimahaasi oo ay banaanka u soo baxeen xoogooda waxay keentay in fasaxa la dheereeyo dibna loo dhigo iyadoo barnaamijyadeennii hore aan idinku soo gudbinay in Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe gudoomiyaha golaha shacabku ka shaqeynayo kala furfuridda xubnahaasi iyo haddii laga maarmi waayo in dib loo dhigo golaha sida ay kulsi horeysay fadhiyo ay ku yeesheen golaha Villa Soomaaliya saddexda mas'uul ee ugu sareysa Soomaaliya sida ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo gudoomiyaha golaha shacabkuba ay go'aamadaasi ku gaareen hadda oo kulamadaasi dib loo dhigay waxay wararku sheegayaan in xiisadu wili ay ka jirto dalkaasi Kenya iyo sidoo kale qeybo kamid ah magaalada caasimadda ee Muqdisho dhaqdhaqaaqadaasi ayaa wili socda iyadoo xubnaha mooshinada wada ay si weyn u wadaan oo la ku saabsan in fadhiga koowaad ee golaha lagu shaaciyo banaankana la keeno mooshin iyo sidoo kale in la dhaqan geliyo mooshinkaasi sidoo kalena cod loo sameeyo gacantaag ah xukuumadda Soomaaliya ayaa si weyn kaga shaqeynaysa in mooshinkaasi la istaajiyo iyadoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu ku bixinayo awoodiisa inta ugu ballaaran kala furfuridda xubnaha iyo in la baajiyo in dowladda federaalka ee Soomaaliya oo xilligan ku jirta dagaalo qaraar oo ka dhan al-shabaab qaybo dhaca gobolada dalka ololaha doorashooyinka qof iyo codkan ay si weyn u riixayso doonaysan inay meel mariso mucaaradkuna ay dhankaasi ololuhu ay kala dirirsan yihiin in buug kale oo mooshin lagu furo ay ka dhigan tahay in dhammaan qorshayaashaasi dowladdu ay markaasi doonayso in sida dhaqsiga badan ay ku sameyso maadaama waqti kooban ay haysato ay arrimahaasi yihiin kuwa markaasi fashil xoogan ku keeni karta siday leeyihiin dadka arrimaha siyaasadda aad ku indhindhaya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la sheegay in dhowrkii habeen aynu soo tagnay intii uu dalku ku sugnaa uu markaasi kulamo uu la lahaa xubno baarlamaanka ka tirsan kuwaasi oo isagu markaasi taabacsan axsaabtiisa ama aad ugu dhow halka kuwa kale uu markaasi ka dalbayay in xildhibaanada garabka xisbigiisa ah ay markaasi u keenaan oo ay kala xaajoodaan arrimaha la xiriira mooshinkaasi mooshinkan socda ayaa waxa uu markaasi daaran yahay in isbedel lagu sameeyo xukuumadda oo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare loo ogolaanin in xafiisku uu dhameysto sida xubnaha intooda badan ay ku doodayaan halka kuwa kalena ay markaasi qabaan inay ku raadsadaan dhaqaale ama xilal dawladeed oo golaha wasiiradu ay ka soo muuqdaan ama xafiisyo kale la geeyo baarlamaanka Soomaaliya sidii la socotayba waxa dhawaan ka dhacay olole looga baxay golaha oo xalal markaasi lagu doonayay sida Saadiq John Mustafa Dhuxulow iyo xubno kale doodaasi wali way jirtaa oo xubnaha golaha shacabka baarlamaanka intooda badan ee dirirtan hadda ra'iisul wasaaraha ku haya marka laga soo tago Puntland iyo Jubbaland oo dagaalkan hogaaminaya haddana inta kale ee raacsan iyagu waa xildoon sida markaasi la aaminsan yahay oo waa la kala furfuri karaa sida Villa Soomaaliya ay iminku aaminsan tahay haddaba midowga xildhibaanada ee Puntland iyo Jubbaland ee xukuumadda ka dhanka ah maxay soo kordhin kartaa ayaa ah dood ugu weyn ee markaasi hadda ay la iska weydiinayo xarumaha dawladda gaar ahaan xukuumadda dhexdeeda iyada oo la doonayo in xubno u babacdhiga xubnahaasi la sameeyo sidoo kale Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa doonaya in xildhibaanada ama kulankaasi uu awood u isticmaalo oo uu gabi ahaan badido in xubnahaasi mooshinkooda la dhageysto wax kasta oo dhaca buuq kasta oo ay sameeyaan iyo talaabo kasta oo ay markaasi qaadaan qaarkood ayaa la sheegayaa in markaasi loo diyaariyay ciidamo kala furfura haddii ay xaaladdu markaasi cuslaato si kasta oo xaaladda noqoto Xamse iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa widay saaxiib dhow ku ah siyaasadan iyo dawladdan markaasi adan qaran xukuumad ahaan markaasi qaadatay tan iyo markii la magacaabay ra'iisul wasaaruhu dawladdu waxa ay la dirirtay maamulada Jubbaland iyo Puntland marka laga soo tago Puntland oo diidmadeedu iyo dirirteedu ay daarneed arrimo la xiriira ra'iisul wasaaraha iyo in la dhaafsiiyay haddana ra'iisul wasaaruhu waxa uu markaasi la diriray oo madaxweynuhu la qaatay Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo ay xigta ahaan isxigaan sidoo kalena ahaa ninkii ka dhigay xildhibaanka horena uu soo noqday gudoomiyihii guddida doorashooyinka ee Jubbaland dhammaan dhacdooyinkaasi waxa uu ra'iisul wasaaraha markaasi muujinayay saaxiibtinimo qoto dheer oo kala dhaxaysa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya taasoo hadda markaasi la sheegayo in labada xubnood isku dhaarsadeen in ay dhameystaan oo ay markaasi xafiiska si joogaan wax kasta oo dhacana markaasi la isdifaaco sida xogaha qaar aanu helin ay tibaaxayaan haddaba ma suurtoobi doontaa kala fadhiyada soo aadan ee la warinayo in toddobaadkan uu curan doono waayahay waxaanu eegi doonaa markan kulamo ayaa ka socday sida barnaamijyadii hore aan idinkugu soo gudbinay guriga Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxaa la warinayaa in 24 saac la soo dhaafay si weyn loo waday kulamo qadka telefoonka ah iyo kuwa fogaan arag ah oo yeelanayeen xubnaha mucaaridka ee Soomaaliya kuwada madax fiiqda ah kuwaas oo si weyn markaasi u lafagurayay arrimaha la xiriira doodda doorashada qof iyo cod in ay markaasi la micno tahay muddo kororsiimo aan u wacneen xubnaha gaar laakiin xubnahaas isku raaceen in awoodoodu ay midayaan ay markaasi keeni karto in ay aadaan doorashadii iyo tendadii Avazioni waxaa la warinayaa in xubno sarsare uu ka mid yahay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iminka uu Shariif Sheekh Axmed uu doonayo inuu ku soo daro golahan uu Farmaajo la warinayo in Shariif uu doonayo in si gooni u midoobaan oo aysan soo raacin xubnaha kale sidoo kale Khayre iyo Abdiraxmaan Cabshukuur Warsame ayaa lafsad ahaantooda didsan oo diidan in Farmaajo uu markaasi uu la soo galo madasha iyo doodan markaasi ku saabsan mucaaradada Khayre waxa uu si weyn u diidan yahay in ay Farmaajo saaxiib ahaayeen oo ay soo wada shaqeeyeen 3 sano iyo dheeraad laakiin maalmihii ugu dambeeyay kala tag aad u xun ay markaasi ku kala tageen halka Abdiraxmaan Cabshukuur uu sheeganayo eedda ah in Farmaajo uu halis geliyo naftiisa oo uu dhaawacay sidoo kale uu doonayo shirqool inuu ku dilo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo doorasho xooggan hadda ay dhex taala ah in xubnahan uu isku wado iyo in uu garab u go'o ayaa waxay markaasi warar ku tibaaxayaan in uu wado olole ah in laabta la isu xaaro oo kulamo lagu yeesho gudaha dalka ama meel ka baxsan si ay la iskugu keeno xubnahaasi oo ay markaasi u midoobaan midow siyaasadeed oo macno u sameyn karta doorashadooda soo aadan waxaa la warinayaa in gudoomiyaha guddidaasi oo markaasi hormuud noqon doona maadaama hadda hormuud uu yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayana ay tahay doodda ugu weyn marka ay maado Farmaajo oo meeshaas ku soo biiro cidda markaasi doorkaasi qaada doonta iyo haddii Shariif uu markaasi isna uu doonayo in uu uga tanaasulo Farmaajona uu markaasi doorkaasi qaato doodaha ugu waaweyn ee Muqdisho ka imaanaya ayay markaasi tahay daawadayaal saaxiibayaal qaybtoos aragtidaada waxay kula tahay nagu dhaaf halkan waa nuxurka wararka وكما سنت على سعشدة برنامج كان داود يال صاحب بيال